Asalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan asxaabta qiimaha badan la soo dhowaada. Waxaa inoo socday conversationka ku saabsanaa A iyo B. Waxaan qaadan doonaa cashirkeena 10aad. Tana cashirkeena gudbaan waxaan ka codsanaya inaad nagu soo biirtid oo aad ka mid noqotid asxaabta ku xidhan page-ka. Ku soo dhowaada cashirkeena maanta. Conversationka waxaa bilaabaya A wuxuu leeyahay What do you do when you have free time? What do you do when you have free time? Maxaad qabataa markaad firaaqada tahay? What do you do when you have free time? Maxaad qabataa markaad firaaqada tahay? B wuxuu leeyahay I love to read books. I love to read books. Waxaan jecelahay inaan buugta akhriyo. I love to read books. Waxaan jecelahay inaan buugta akhriyo. A wuxuu leeyahay What kind of books are you interested? What kind of books are you interested? Buugaagta baad xiisaysaa. What kind of books are you interested? Buugaagta baad xiisaysaa. B wuxuu leeyahay I like history books. I like history books. Waxaan jecelahay buugaagta taariikhda. I like history books. Waxaan jecelahay buugaagta taariikhda. A wuxuu leeyahay Do you need any book to read? Do you need any book to read? Ma u baahan tahay buug aad akhridid? B wuxuu leeyahay Yes, I am looking for a new book to read. Yes, I am looking for a new book to read. Ha, waxaan raadinayay buug cusub aan akhriyo. A wuxuu leeyahay What city are you from? What city are you from? Magaaladee baad ka timi? B wuxuu leeyahay I am from New York. I am from New York. Waxaan ka imi New York.